magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaa waxaa laga furay xarun fududeynaysa waxbarashada loo aado dalka turkiga haddaba si aan warbixin dhamaystiran uga helno waxaanu la hadalnay ama aan waraysi la yeelanay madaxa hay'adaas ama shirkadaas waxa uu waramay maxamed timire oo garabkayga taag aad buu maasantahay Timire marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo TV-ga dawladda Puntland iyo wariyaasha ka shaqeynaya dhamaantood ugu horeeyay Timire iyo xaliye dhamaantiin waxaan marka hore wadiin mahad celinayaa shaqada aad bulshada u haysaanin haddii aan warbixin kooban ka siiyo Hami Enterprise waa agency ka shaqeyn doona arrimaha waxbarashada caafimaadka guriyeynta iyo wuxuu ka shaqeyn doona caafimaadka qaybtiisa insurance-ga wuxuu waa agency ka furan gobolka Nugaal gobolka Bari gobollo badan oo Puntland kamid ah iyo gobollada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya agency ka furan waa muhiimadiisa ugu weyn waxa weeye waa waxbarashada Turkiga dalkaynu walaalahanahay ee Turkiga maadaama ay jirto dad badan oo u baahan xaalad caafimaad ugu baahan ama xaalad waxbarasho ugu baahan dalka Turkiga aqoon-yahano Soomaaliyeed oo dalka Turkiga ruuxiisa wax ku bartay oo PhD level ah ba waxay istuseen inay asaasaneen agency-gan xarumaha kala duwan oo sameeyaan baahida ka muuqatay bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeedba ba waxay tustay dadka nimanka dhalinyarada ah in ay sameeyaan Hami Enterprise ujeedkiisa ka dambeeya marka waasaas wuxuu ka shaqeeyaa qaybaha aan ku sheegay caafimaadka waxbarashada waxaan loo yaqaan real estate-ka iyo wuxuu ka shaqeeyaa counseling-ka waxaan loo yaqaan la talinta in la siiyo ardayda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo u baahan in ay ka hesho xog dheeriya wadanka Turkiga ba loo sameeyay waxaan u fahmay ujeedka loo sameeyay inay tahay baahi ay dadku u qabaan adeegyada aad soo sheegtay gorma idinku dhalatay marka inaad asaastaan muddo fiican waa jira Puntland waxa hadda laga sameeyay waa waqti kooban bay jirtaa waxaan u maleynayaa xafladiisii daafurka gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garowe waxaanu sameynay habeen dhaweeytaynu sameynay waxaan nagala soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Puntland gobolka Bari sidaas oo kale wuu furan yahay laakiin way soo socotay oo waxa ka soo bilaabtay magaalada xarunta weyn ee Soomaaliya magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho ka soo bilaabatay in fiican wuu furan yahay oo shaqada waa la soo waday markii tijaabada lagu sameeyay Muqdisho iyo gobolada koonfureed ba waxa la istusay in lagu daro Puntland tan kale waxaan ognahay in ay sanad kasta ka qalin jabinayso intaas oo arday oo reer Puntland iskuulada secondaryada Puntland iyo macaahidda ku yaal Puntland oo dhan kadib waxa dhacda in ay ku dhibtoodaaneen si ay u heli lahaayeen fiisaha dalka Turkiga ee waxbarasho anagu waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno inaan u keeno iyagoo guryahoodii jooga qofku aan gurigiisa ka tagin magaaladiisa jooga inuu helo fiisihiisii jaamacadiisii wax kasta oo imkaaniyaad ugu baahnaa admission letterkii wax kasta oo imkaaniyaad ugu baahnaa inuu ku tago dalka Turkiga kuna biiro jaamacadaha Turkiga sidoo kale Hami Enterprise waxa ay qaban doontaa markii ay ardaydu ay tagto dalka Turkiga jaamacada ay rabaaneen ama ay danaynayaan waxay u sameyn doontaa Hami Enterprise in aysan ka harin jaamacadii kaliya aysan kaga harin ay dul joogtayso habka uu wuxuu baranayo qaabka xaaladiisu u socoto waxyaalaha uu u baahan yahay suuq uga baahan yahay una samayso assurance-ga caafimaadka iyo wax kasta oo ardaygu u baahan yahay ee uu ku fududeysan karo waxbarashadiisa mana ahan inay ka harayso way dul joogteen doontaa insha Allah waata shaqo badan baad ii sheegtay maxaa dano idinkeedu ku jirtaa qiime intee leeg sibaad ardada ka qaadaysaan ileen Turkiga fiisihiisa markii ay gacan saddexaad fiisaha raadinayso ama dad mukhallasiin ba dadku aalab yiraahdaan oo qof mukhallasa oo fiisaha qofka u raadinayo lacag badan buu ka qaadaa qofku markuu isagu yahay qof galaagal badan ee authority u leh ama awood u leh inuu safaaradda Turkiga Muqdisho tago waxa laga yaabaa in qiimo yar ku baxayso maxaa marka qaab qiimaha xaqiisa marka la yiraahdo sida dadku ula macaamilaysan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego Timiro adiga oo maasan Hami Enterprise waxa jira barnaamij kale oo u dheer qaabkan ku sheegay waxaan marka rabnaa in waxa noogu jira anaga waxaan rabnaa inaan u shaqeyno aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo aan waxa weeye barnaamijkan asaasi waxa ay ka dambeeyay waxay tahay ma aha dad faa'iido doona waxay rabaan inay fursadda uga faa'iideeyaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda waan ognahay in caqabad badan ka jirto sida ay ku tagi lahaayeen dalka Turkiga iyo meelo kale mid labaad waxaan rabaa inaan kugu daro inaysan noo xirnayn dalka Turkiga kaliya aanu rajaynayno inaanu
ku darno meelo badan oo aan horey loo gaari jirin oo ardayda reer Puntland ay soo gaari jirin baan waxaanu doonaynaa inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan ku darno marka waxaa jirta qofka waxa aan ka qaadayno qofka waxa laga qaadaa oo kali ah diiwaangelinta waxa loo yaqaano oo shaqada loogu qabanayo oo ah $100 oo kaliya waxa jira shirkado badan oo ka shaqeeya barnaamijkan oo koonfur iyo meelo kala duwan ku yaala waxaan u baahanahay inaan isweydiino Hami Enterprise maxay kaga duwan tahay shirkadihii hore ama agenciyadii hore u jiray ee ka shaqeyn jiray barnaamijkan ee gobolada dalka kala joogjoogay maxay kaga duwan tahay su'aashaas u soo laabanaya waxaan rabaa adduunka qof bini aadan ah oo shaqo qabta oo aan haddana wax faa'iido ka doonayn aad buu u yartaa lama arko waan dareemi karaa inaad tihiin niman dhalinyaro aqoon-yahano ah dalka wax u bartay danaynaya inaad bulshada wax u qabataan haddana idinka laftigiinna ardayga fiisihii ma free baad ugu soo saaraysaan waa su'aal meesha ku jidha admission letterkii ma free baad ugu soo saaraysaan waxaan ogahay inaad habeenkii dhowto xafladiina aad ku darsateen in ardayga xataa baabuurka ka soo qaadaya Istanbul qofku markuu ka dogo airport ka soo qaadaya gurigii ay degi lahaayeen iyo kharashka lagu dajinayo gurigii lagu raadinayo warqadii jaamacadda tii booliska iyo fingerprinterka qofka security issueska la baarayay waxaasoo shaqo ah oo garowe ilaa Istanbul ama Ankara ma waxaad leedahay free baad ku qabanayna xogtaas waa ku maasan tahay aad maadaama aad adiga ruuxaagu xog fiican ka haysin waxaan rabaa inaan kuu sheego free kuma qabanayno wax free ah ma jiraanin laakiin anagu waxaan charge garaynayn waxa jira qofka isaga wax loo qabanayo oo isaga gelaya ka soo qaad in qofkan jaamacadda laga soo diiwaan geliyo in booliska wixii ma taqaana la mariyo laakiin anagu faa'iido doon ma nihina waxaan nahay dadka u shaqeynaya ma jirto wax faa'iido ay dheeriyo anagu aanu qofka saarsan doono laakiin waxaan u shaqeyn doonaa anagu dadka waxa aan isaga gelaya de waa ku khasbanay anagu service ma bixinaynaa laakiin qofkan isaga la baxaya wixii gelaya waxa gelaya aslanna ma ahan anagu wax badan oo gelaya waxa weeye wax boqolkiiba boqol aan ugu talagalay in ay ka diiraan sida ugu macquulsana ay noqdaan shirkado badan oo saas oo kala wadanka ku soo biiray waxa la yiraahdo in badan oo ka midna dadku cabashay ka muujiyeen Hami Enterprise baadama hadda Turkiga aad xoog saarteen maxay kaga duwan tahay shirkadihii hore oo noocan nidaamkan sameyn jiray waa aad kaga mahadcelinaya waa su'aal isweydiin mudan Hami Enterprise waxay shirkadaha kaga duwan tahay kow waxa dadka loogu shaqeeyo adeega dadku ugu shaqeeya shirkadu inta badan waa profit bay ka raadiyaan laakiin anagu waxaanu ka raadin doonaa qiimo ahaan waxaanu ka raadin doonaa qofka inaan u shaqeyno kaliya kow samcad baan ka raadin doonaa tan labaad waxa weeye waxa laga yaabaa qofka meeshii laga qaadi jiray lacag dhan ka soo qaad $100 meeshii laga qaadi jiray example Hami Enterprise waxay oran doontaa bay aan rajeynaynaa in difaar bay tu waxa ugu macquulsan ee hoose kow qiimaha waa qiimaha kow Hami Enterprise dhamaan shirkadaha waxay kaga duwan tahay waxay degan tahay 80% gobolada Soomaaliya oo dhan way degan tahay oo meel kasta oo qofku u baahan yahay qofka Garowe shaqada looga qabto waxa shaqadiisa si lamid ah loo qabanaya kan jooga Boosaaso Hargeysa Muqdisho dhamaantood waxa looga qaban doonaa shaqada si isku mid ah oo qofka Hami Enterprise la soo xiriira meelna ma kuma ciloon doono waa qodobka saddexaad tan labaad waxaan kaga duwanahay barnaamijka hadda aan ku sheegay oo qofka in laga qaado airportka markii Garowe hawshiisa laga bilaabo ilaa inta uu jaamacadda ka dhiganayo in ay la socoto Hami Enterprise oo ay mas'uuliyadiisa qaadato xoogana waxay saari doontaa inta badan waxa la yiraahdaa organizationada shaqadan qabta waxay sameeyaan in gobolada far area loo yaqaan ee fogfog ee dalka Turkiga ku yaala xuduudaha xiga in ay inta badan geeyaan dadka waxaan isku daynaa anagu oo aanu rabnaa inaanu ka shaqeyno meelaha ugu macquulsan oo caasimadda ka tahay caasimadda labaad Ankara Istanbul waata barnaamijkeena waxay ugu maqaalaa inuu ku jiro barnaamijka la yiraahdo YOS oo macallimiin in laga keeno wadanka Turkiga kadibna ardada dugsiyada sare ama aan haleelin laakiin wax u dhigma macaahid ka baxay cilmiga dugsiyada sare macaahid ka bartay oo aan jaamacad helin in aad wadankii gudihiisii aad ugu keentaan macallimiin kadibna ay scholarship ama waxbarasho free oo jaamacadaha Turkiga ay helaan arintaas haday jirto bal tafaasiil ka bixi aad baa maasan tahay barnaamijkan loo yaqaan youth examination waa imtixaan ay qaado wax barnaamij ay dawladda Turkiga bixiso weeyo oo scholarshipkan waxa weeye waxay haysataa ma jirto organizationada oo dhan lama siiyo waxa haysta Hami Enterprise way haysataa barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa barnaamij ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaaneen ay u fariistaan imtixaan isku mid ah oo noqon doona xisaab uu noqon doona intiisa badan imtixaanka markay u fariistaan qofka sanadkii oo dhan wax lacag laga maqaayo waxa laga qaadaya oo kaliya waxyaalaha uu daawacanay sida warqadaha qalimaanta iyo waxyaalaha isaga gelaya ee ma taqaana aan fiiga ahayn waxa ka bixi doona fiiga waxa laga qaadi doona sanadkii oo dhan oo lagu shaqeyn doona $200 buu jaamacadda markuu helo marka waa scholarship waa full scholarship baa la oran karaa
maxamuud xareed xirsi madaxa suuqeynta ee shirkadda hami enterprise ayuu kaasinahaa waa mahadsantahay